السلام عليكم أصحاب تقاليق السوداء بعد وولاشي نشاتية قروح هدي أدنالك كعصب تاي سبسكرايب كمبليل كفرو لايك إنو صار شير نقراي فيديو إن شاء الله هدي وكو عجبي إن شاء الله ما أنت waxaan wadnaa casho fudud mise quraacni walba siduu rabo ayuu ka dhiganaa sidaan quruxda badan ayuu noogu soo baxay aan isla aragno sidaan u sameeyay waxyaalihii aan ka sameeyay inta waxaan ku haystaa baaquligan waxaan rabaa inaan ku shubto koob caanaha bowdharka ayaan soo qastay koobkan bakeeriga aad u jeedaan ayaan ku shubtay insha Allah sidoo kale waxaan ku darsanaa khamiiriso mise leebato 2 qaando ayaan ku darsanaa qaandadan yariista ayaan isticmaalaa waad u jeedin tan mideeda labaad ayaan ku soo daray sidoo kale waxaan ku darsanaa isla socona asxaabta qaaliga wax fudud ayaan ka sameeyay sokor qaando iyo bar yar aan ku daraa qaandada raashinka waad u jeedaan iyo cusbo yar ayaan ku darsanayaa cusbo shiidinta cusbada yarta budul ah wax yar oo been test ayay u sameynaysaa insha Allah saliid yarna waan ku darsanaa isla socod wanaagsan waa u jeedaan koobka silkiisa saliid yar aan ku darsaday insha Allah intaan ayaan rabaa inaan isdhex geliyo burka aan ku darso doonan waa isla arkeena burka aan ku darsanaa anigu waa 2 koobkii ayaan dhexdaas idin tusay oo caadiga burka aan ku isticmaalo adiga wax alla wixii kugu filan waa sameysan kartaa direct koobka dhigta leh shaahiga labadiisa waa ka sameysan kartaa saddexdiisa ka sameyso at least kaas cabir ahaan uu soo dhaweynaa burki ayaan ku daray kulli ayaan ku daraa then haduu ugu yaraadana waan ku soo darsanaa insha Allah laakiin hadda waa kana u jeedaan biyo way sama burki dhan aan ku gidinaa marka isla socod wanaagsan asxaabta qaaliga insha Allah waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan ka heli doontaan aadna ka faa'iideystaan hadda caruurtiina casho yar oo fudud waa uga dhigi kartaa quraacda canjeeladan waad uga nasan kartaa subax walba aad dubaysid waa kana sidaas oo wacan ayaan isku dhex gelinaa wuxuu u baahan yahay burka in si fiican loo xasho haddii si fiican loo xasho waqti aad siisid maasha Allah asigana qurux ayuu kugu soo baxaa insha Allah hadeertan waad u jeedaa sidaan u xashaayo waxaan rabaa inuu isdhex galo hadduu adeeg noqdana wax yar caanaan ku soo darsanaa xoogaa waxaan ka dareemayaa inuu adeeg yar yahay caano yar aan ku soo darsanaa bowdharkii leh marka sidaas aad u jeedid la isku dhex gelinaa caanahaas hadaan ku darsado waa kaasoma heer adeeg waaye waa inaa ila fahantiin ayaan rabaa sidaas aad u jeedin arkaysaan adeeg waaye marka wax yar caanaan ku soo darsanaa waxaan dhan kuma darahay wax yar leh ku darsanaa kistaas ayaan ku xashaa markaan si fiican u xashana bur yar ayaan korka uga biibinaa because saliid wuu qabaa saliid ba igama rabo waa kana kaamiradu waa idinka jaray sababtoo ay waqti badan oo idinka cunaa si fiican burka iskaga qas si uu kugu noqdo mid fiican oo soft ah adigana oo wax qurxna kugu soo baxo hadda waa kana maasha Allah sidaan wacan ayaan u soo qasay cabaaraan soo qasay inta u dambeysana agtiina ayaan ku dhameystiray waaba diyaar soo maahan daboolkan saaraneynaa halka iyo jikadan isla aadeynaa because dabkii ayaan isla aadeynaa birti ayaan saartay xoogaa yaro saliid ayaan ku shubtay saliid alla saliidii ku taalo isticmaal raashinka aad ku karsatid xabad basal ayaan soo jarjaray xabad basal aan soo jaray basashaan ilaa iyo xoogaa ka gaduudato caraf ayay noqonay markay bislaato basasha insha Allah hilibkan aan soo shiitay waa hilib geel oo rubac ah sidii sambuuska oo kale ayaa huf u sii waana soo shiiday qof walba wuu garanayaa islahay nin walbana wuxuu rabo inuu ka sameeysan karaa haddii aad chicken rabtid dooro malaay waxaad rabtid waa ka sameeysan kartaa carrot iyo baradho yar aan soo diyaarsan inta ii taala waa kan waan ku shubanaa spiceskaygan ku darsanaa insha Allah waan isla arkaynaa idinka hor dhicin carrotkii waxaa waaye 2 xabo oo baradho iyo xabad carrot aan soo dhex jarjaray si yar aan soo jaray waad u jeedaan waan ku soo darsaday kana maasha Allah wixii oo isdhex gelinaysa
wixii markaas adiga aa haysatid oo gurigaaga available ku ah waad ku isticmaali kartaa, waxba banaanka ka doonin. xitaa haddaad dalac bilaash haysatid waad ku samaysan kartaa. muhiim ma ahan wax yaroo tasti ah adina soo saaratid ayaa muhiim ah. ma fahantid? insha allah asxaabta qaaliga waxaan jeclahay inay ila socotaan xawaajigan isticmaala. xawaaji kaari waa sug waa idin tusaa. okay waa kana xawaajigan ayaan isticmaalay isigoo diyaarsan ayaan soo gatay. kii kale oo iga dhamaaday anigaan diyaarsaday. baabriika maala barbarooniga shiidan waa kana asigana. okay waa ujeedin sama. insha allah cusbo yar ayaan ku soo darsaday. waatana intaanaan isdhex gelinaa. لأن maxaan ku sameynaa biyaan ku daraa daboolkooda biyo fiican aan ku darsanaa si ay baradhada igu bislaato. ma fahanteen? haddii ay baradhada adeeg tahayna gadaal biyo ugu darsan kartaa, dhib ma lahan. muhiim waxaa ah baradhada inay ku bislaato. waa ujeedin daboolkeeda ayaan saareynaa oo isku soo noqon doonaa insha allah. markuu biyaha nooga dhamaaday sidaan ayay noogu soo baxday. waa ujeedaan maasha allah. waaba ka dhigaa kabsar yar ayaan korka uga sharxanaa. diyaar waay sooma. insha allah sidaas ayaan ku diyaariyey. haddana burka ayaan isku soo noqonay bal aan aragno. maasha allah waan sameyneynaa bal aan isla aragno asxaabta qaaliga. bur yaraa inta marsaday 3 kabal mise 4 kabal midkaan jeclaan ka dhiganaa sababtoo ah idinka hor dhacaayo qaabkaan u sameynayo waa isla arki doonaa. hadda 3 ayaan ka dhigay. okay asxaabta qaaliga waad ujeedin soomaa sidaas aan iskaga jarjartay. marka wax culeysna inuu kaa noqdo lama rabo. ma fahanteen? oo dhooduu culeys kaa noqdo ceeriin ayuu badanaa. khafiifna lagama dhigo wuu kaa jajabaa. normally dhaxda waxaa laga dhigaa dhexdhexaad. insha allah sidaas ayaan iskaga fidsaneynaa. bur yar ayaan hoos mariyey waad ujeedaan si daa'ira misirkal oo wareeg ayaan u fidsanaa. bur ayaan marinaa halkaasaan dhiganaa. midka kalena waan diyaarsanaa. okay kashana buraan iska marina waxoogaa way soo raaraacaysaa saad ujeedaan. marka bur mari si ay kaaga dhegdhegin. maasha allah cajiinka si qurux badan aan u qasay. marka maasha allah asigaaba si soft ee u soo baxay. ma fahanteen? maba ku dhibaayo insha allah asxaabta qaaliga. hadda insha allah waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan ka heli doontaan. waxaan saas idinku sharxaa asxaabteeda walaalahayga maasha allah familkayga ayaa tihiin inaan idinka qanciyo oo si fiican aad u fahantaan. qof walba wuu yaqaanaa si wax loo fidiyo qaabkii, laakiin waxyaalaha yarka qofka walaalka kuu faa'iideynayo waa inaad si fiican adigana ugu sharaxdid. waa kana maasha allah halkaan ayaan iska dhigtay. waraa idinku daali ka raali noqda. midkii labaad ayaan fidinayaa oo aniga waxaan rabaa inaan labadan bur is saaro. qudaartii aan diyaarsanay suqaarkii aan dhexda ka gashto. hadda quraac yar mise cashiiroo maasha allah inaan iiga soo baxdo aan rabaa. ilaaha haduu yiraaho awal uu dhibtoonayo faarahan aan ku dhahay ansalaato yar salar yar daad dhanaan yar u samaysatid waaba macaan waa maasha allah. si jawi degan oo tartiib ayaan fiirinaa. kaamirada ma ka jarin sababtoo ah in la arkaan rabaa. muhiimadda waalahan suqaar waa la kala yaqaanaa, burna waa la qasi karaa sooma. muhiimadda waa intaan waxaa la rabayba waa intaan. ma fahanteen? waa kana sidaan ayuu noqda burkii. okay sooma. hay insha allah hadda waxaan ku sameyneynaa marka qudaartaan soo qaadanaa isaga. waa kana qudaarta suqaarkeena yarka ayaan dhexda uga shubtay si tartiib si fiican aan rabaa in halka jab aa goosad inaad ka dharagtaa rabaa. maasha allah qudaar yar oo macaan leen wax hadda oo kuma jiro oo qaldan. qudaar yar oo macaan oo fitamiin leh waxaan ku dhahay kaaliska arag oo adigana faadna lahayn maasha allah. xitaa haddii aad daahsan tahay waqti kaa mucneys burka yarka iska qaso
suqaarkaada ka tuuro maasha Allah haddii aad imaado daqiiqad yar ku sameynay sababtoo aan waxaan ku sameysanaynaa dibka ayaan ku sameysanaynaa foorno dhama geli dooni insha Allah waad u jeedaan sidaan ayuu igu soo baxay qudaartii waan ku dhameystiray midka kale ayaan korka ka saaraa marka okay si tartiibtaas ayaan labada af inaan isku qabto oo ka xiraa rabaa sababtoo way kala dhacayaan haddii kaleed khasaara ku qabanayso marka labada af waa u jeedaan sidaas ayaa tartiib u wareejinaysaa ma fahamte inuu kala dhaca lama rabo sidaas tartiib marka uga xirtid labada af then maxaa ku karsanay birtaawadaada ayaa saaranay tartiibtaada ayaa ku dubanaysaa dabkaaga dibna ma ahan waa wax iska fudud easy waxaan saan u leeyahay mataqaanaa faraha hore food aan saan u leeyahay sababtoo waa isku hubinaa labadooda inay isla isku dheheen then waa kana waa maasha Allah waaye hadda waxaan tageynaa dhanka iyo dabkii tartiiba loo soo qaadaa afaaraan waa la saaraa saliid yaraan birta marsanaa insha Allah waa kana dabkii ayaan saaray dhanac waqti badan uma baano wax yar oo wallahi uu kar maasha Allah dabka xooga waa u dheereystay adigoo iska gaaban kartaa maasha Allah wuu bislaaday saxankan ku soo qabtay waa kana maasha Allah sidaan quruxda badan leh oo dahabiga ayuu noogu soo baxay insha Allah waad u jeedaan waxaan fiiri doonaa dhexdiisa sidoo noqday isla arkaynaa maasha Allah soo qurux dhanka kale adaan ii tusaa haye dhanka kalena sidaan ayuu noqday maasha Allah insha Allah walaalahayga qaaliga idinkana inaad sameysan doontaan aad ka heli doontaan ayaan rajaynayaa ilaahay hadduu yiraaho ducaduna waa xaggiina iyo dhiirigelintina like inoo saar haddii aad channelka ku cusub tahay share garee insha Allah dhexdiis ayaan idin tusaa waan soo jaray waa kana sidaas ayuu labada dhinacba dahabi qurux badan ku noqday insha Allah asxaabta haddii aad muuqaalkan ka heshid share garee intaan muuqaalkan iyo muuqaalka xiga ku kulmi doono maxaan isku ognaade biidnillaahi alkariim waan isku soo duceyno khayrkana ilaahay na wada waafajiyo insha Allah assalaamu calaykum asxaabteyda qaaliga soo dhawaada